bankiga dhexe ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhawaan mar kale ka digay inay ku sirmaan shirkadahan sheeganaya inay ka shaqeeyaan suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex kuwaasi oo faa'iidooyin badan ku soo xirogelinaya macaamiishooda. saraakiisha dawladdu waxay nooca ganacsigan ku tilmaameen bonds scheme kaasi oo ah in lacag laga qaaday macmiil la siiyo qof kale iyadoo lacagaha lagu maamulayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qancinayo inay lacaga ku soo darsadaan ganacsigan oo ku salaysan hab khiyaano ah sida ay saraakiishu sheegeen. bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu qoraal uu soo saaray uu ku amray in la joojiyo shirkadahan isla markaana akawnadooda la xiro. hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday inay shirkadahani ay sii shaqeeyaan inkastoo laba fariimood oo kala duwan ay ka soo baxeen bankiga Soomaaliya isla markaana ay u muuqato inay iska dhigatirayaan amarkii bankiga dhexe. haddaba maxay yihiin shirkadahan? sidee ayay u shaqeeyaan? ma haystaan sharci? sidee ayay ku kala gudbiyaan lacagaha? lacag intee leeg ayaa ku jirta suuqan? maxay yihiin waxyaabaha sharci darrada ah ee looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin? maxaa ka jira in faa'iidada badan ee ay macaamiisha u sheegayaan ay dhab ahaan tahay mid ka soo baxday lacagta ay maalgashadeen? galka baaristu waxa uu la xiriiray mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa amniga, kuwa lacagaha. waxaa kaloo galka baaristu uu wareystay dad lacaga gashtay shirkadahan forex iyo weliba kuwa ka shaqaysta shirkadahan iyo khubaro madax bannaan. jawaabaha soo baxayna waxay muujinayaan in shirkadahani ay ku shaqeeyaan qaab uu mugdi ku jiro iyo inay lacagaha ku kala wareejiyaan qaab aan sharci ahayn iyo in lacagaha ay aruuriyaan aan looga shaqaynin gudaha Soomaaliya iyo inaysan shirkadahani u sheegin macaamiishooda in lacagaha ay siinayaan aysan ahayn kuwa ka soo baxay lacagtooda oo la geliyay ganacsiga balse ay yihiin lacago laga qaaday macaamiil kale oo cusub iyo in shirkadahani kala wareejinta lacagahooda aysan ku wargelinin dawladda Soomaaliya taasi oo ku qasbi karta inay la macaamilaan dad aan sharciyad u haysanin kala wareejinta lacagaha. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya haatan waxa uu madax ka yahay macadka maamulka iyo maareynta dadweynaha ee SIPAM oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. runtii waxaan loo yaqaan forex-ka caalamka oo dhan ay ka jiraan macnaha wadan gooni ah kama jiraan maadaama internet based ay tahay wadan walba oo dunida kamid ah shirkadaas uu la xiriiri karaa. laakiin waxa muhiimka macnaha waxay tahay shirkada joogta Soomaaliya ee tiraahda waxaan ka ganacsadaa arrimaha lacagaha ama waxaan ahay dalaal lacagaha ah waxa loo baahan yahay in ay ruqsad ka haystaan wadanka ay joogaan. sidoo kale marka waxa badanaa laga rabaa shirkadahaas noocaas ah inay maraan hanti dhowr oo hubinaya inay lacagahaas si fiican u maamuleen. sidoo kale waa inay u sheegaan dadka ay lacagaha ka qabanayaan khatarta ku imaan karta. shirkadahani waxay soo shaqaynayeen tan iyo sanadkii 2018. saraakiisha dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo khubarada dhinaca maaliyaddu waxay aaminsan yihiin ilaa 300 oo milyan oo dollar inay ka aruursadeen macaamiishooda kala duwan. ilaa xilligaasi waxay sheegeen saraakiishu in lacagahan badankoodu ay wadanka ka baxeen sida ay wadanka ugu soo laabtaana ay adag tahay maadaama lacagtani aysan ka shaqaynin gudaha Soomaaliya. dawladda Soomaaliya ma xiri karto akawnadaasi sababtoo ah dibadda ayay ku yaalaan. waxay xiri karaan oo kaliya akawnada ka furan gudaha Soomaaliya. waxay shirkadahani sheegeen in dilaaliinta joogta wadamadaasi dibadda ah ay akawnno u furaan iyo lambar sir ah oo ay ku galaan akawnadaasi si ay ugu kala gadistaan lacagahooda. waxayna dilaaliintu ka qaataan kharash ay kula heshiiyeen inta kalena waxay u dhigaan akawnkaas. shirkadahani waxay ballan qaadaan inay faa'iido ku bixinayaan 35 maalmood gudahood. lacagaha faa'iidada ah ee loo ballan qaado macaamiishuna waxay qaarkood gaarayaan ilaa 70%, ugu yaraana 20% ama inta u dhaxaysa. saraakiishu waxay sheegeen in lacagta laga qaado macaamiisha cusub la siiyo macaamiishii hore kadibna ay wareegaasi ku socoto si loo kasbado macaamiil cusub iyadoo ay bixinta faa'iidadaasi ku xiran tahay inay kolba macaamiil cusub helaan. mid ka mid ah saraakiisha dhinaca maaliyaddu waxa uu ii sheegay in shirkadahan qaarkood ay shaqaalihii ka kaxaysteen bankiyada gaarka loo leeyahay qaarkood si ay ugu shaqaystaan isla markaana ugu qoraan macaamiil cusub. fariimaha ay u gudbinayaan macaamiisha cusub si ay u kasbadaanna waxaa ka mid ah in 7 kadib la xirayo qabashada macaamiisha cusub. dadkaasi faa'iidada badan helayana haatan waxay difaacaan shirkadahan iyo adeega ay bixinayaan. shirkadahan forex-ka ayaa la sheegay inay sidoo kale bartilmaameedsadaan dadka bulshada magaca ku dhex leh
si ay u noqdaan safiiro u dooda. qorshahan ayaan istaagayn marba haddii ay helayaan macaamiil cusub iyo lacag cusub oo soo gasha shirkadaha. walaaca ugu weyn ee ay qabaan saraakiisha amniga ayaa ah in lacagahan laga aruuriyey dabaqada u hooseysa ee bulshada sida haweenka dukaanleyda ah iyo dadka waratada ah iyo weliba dad kale oo lacaga ka soo deysaday bankiyada, kan ugu yarna uu maal gashaday $500. sayid cali qaasim maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha mid ka mida shirkadaha forex ee ka howlgala magaalada muqdisho. $1 ayuu rabaa qofku inuu loo maalgeliyo, wuxuu kusoo daraa $500 ama $200 ama $300 qoladaas sidii ay serviceka u qaataan ay ku xiran tahay. $1,000 waxaa laga yaabaa 30 beri ama 35 beri inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qolo walba ay ku xiran tahay, laakiin faa'iidada ay bixinayeen inta ilaa $300, $400, $500, $200, $250 inta waa soo ayga bixinaa. shirkadahan ayaa ii sheegay inay macaamil la leeyihiin dilaaliin jooga jasiiradda Qubrus iyo wadamada Maleeshiya iyo Turkiga, kuwaasi oo u furay bar internetka ah oo ay ku sarriftaan lacagaha. hase yeeshee lacagaha ay sarrifayaan waa in dibadda waddanka looga bixiyaa. sidoo kale faa'iidada ka soo baxdana inta ay doonto hal ekaatee waa in waddanka la soo geliyaa iyadoo aan lala socodsiinin dawladda Soomaaliya, isla markaana aan laga bixinin canshuur. sidoo kalena aan la soo marsiinin bankiyada dhexe iyo bankiyada kale ee korsocodka uu ku leeyahay bankiga dhexe. sayid cali qaasim maxamed ayaan weydiiyey sida lacagahan ay dadka ka qaadaan ay ku kala gudbiyaan. Haruna waxay ku xiran tahay qoladaas ay u furan tahay farsamooyinka ay isticmaalaan. haddii lacagtan dibadda ka dibdoofidirayaan way samayn karaan, haddii gudihii ka dibdoofidirayaan laakiin way ku adkaa kartaa oo waddankanaga dareemi kartaa central banki iyo mastercard regulation ku sameynaya bangiyadii oo bangiga xataa hadduu ku yaalo mastercard isticmaalayo muqdisho ama Soomaaliya uu ku yaalayo, waxaa laga yaabaa lacagta laga dibdoofidiraynayo inay xadidan tahay ama caqabad lagala kulmo. marka inta badan farsamooyin ay isticmaalaan oo lacag inta ay ku hayaan waxaa laga yaabaa inay xagga ka amraan oo dad ay ku kala wareegaan oo xagga laga dibdoofidiray. marka farsamada waxay ku xiran tahay iyo istiraatiijiyadda ay isticmaalayaan qoladaas oo u furan yahay agensiga ama xaruntaas u furta dadka inay maalgeliyaan. waa gartay. su-aashaydu meesha ku qotanta waxa weeyaan bankiyo leh corresponding account ama bankiyo ay la macaamilaan oo caalamka ah, lacagaha la isku mariyo miyaa jira mise bankiga dhexe Soomaaliya la maraa mise bankiyo gaara la maraa mise xawilada la maraa? taas weytaan rabina faham. Haruna bankiga dhexe horta lama maro oo loo mari karo. bangiyada dhexana oo aan bangiyada aan dhehe localka ah magaalada Muqdisho ku yaalana way ka xadidan yihiin, lacag in la marsi karo aad u adag tahay oo waxaa laga yaabaa lacagtooda inay ku ogol yahay oo lacag badan aada ka dibdoofidiray karin. marka safety iyo nambaro in la isticmaalona oo lacagtan lagu wareejiyana caqabad lagala kulmo. marka laakiin saan kuu sheegay mar walbaba waxaad u baahan tahay saacidaad ama dawladda inaad ka heshid ama dad aad adeegsatid, laakiin sida aan kuu sheegay waxay ku xiran tahay xaruntaas dadka u furan tahay istiraatiijiyadii marka hore ay ugu talagaleen lacagta inay ku dibdoofidirayaan. way haystaan already wax ay sii degsadeen waaye, wayna ka bixi karaan, wayna heli karaan meel ay ka lacagtaas ay marsiyaan oo software la isticmaali karaa jiro. laakiin waxay ku xiran tahay qofkaas markii hore soo ugu diyaar garoobay iyo caawinaad inuu markii hore uu sii samaystay oo lacagtaas uu ku diri karo, ku gaarsiin karo brokerkaas. lacagahan waddanka laga bixiyey ayaa la sheegay in waddanka looga saaray qaab mugdi ku jiro, sida in lagu qaaday boorsooyin iyadoo aan lala socodsiinin mas-uuliyiinta dawladda. saraakiishu waxay aaminsan yihiin in waddanka ugu badan ee ay lacagtu tagto uu yahay waddanka Imaaraadka Carabta, kadibna ay uga sii gudbaan wadamo kale oo ay ku sugan yihiin wakiilada shirkadaha forex, gaar ahaan 3 waddan ee Qubrus, Maleeshiya iyo Turki. mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadahan balse codsaday inaan magaciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in shirkadahani ay ku qasban yihiin inay raadsadaan ganacsade oo lacagta ay dibadda ku hayaan uga baahan magaalada Muqdisho oo kale. ganacsadahaasi oo isna lacag uu ku haya magaalada Muqdisho u doonaya inuu dibadda u diro, ama qof diblomaasi ah inay boorsooyinka ku soo qaadaan maadaama diblomaasiyiinta aan la baarin. qaabkaasina uu yahay kan ugu fudud. gudoomiyaha bankiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa goor hore uga warramay VOA-da sida uu u arko shirkadahan. anagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad, waayo dad ma aha dee
shati ama license ka haysta bangiga dhexe, ogolaansho ka haysta bangiga dhexe. Ma jiro bangiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado. Cid kastay yihiinba waa dad uun qaab khayru sharciga ku shaqaysanaya. Dabeedsi xilka naga saaran inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadanu ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. Haddii aad lacagtaada sarrifayso suuq ka sarrifanayso waa arrin adiga ku gaara. Haddii aad lacag dad kale sarrifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashay jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqa aad ka ganacsanaysa lacagta ka qaadaysa yahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa habmaaliyadeedkiisa, halis baa ku jirta badan. Marka laga reebo in qofku dee si khayr sharciga ku shaqeeyey, haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa, faa'iido baad ka helaysaa, lacagtaada keen. waajibaadka nasaaran bay ka mid tahay inaan kadib. dadka ka shaqeeya qaarkood oo magacooda aan qariyay waxay ii sheegeen in xarumahan ay soo furtaan shatiyo ay ka qaataan degmooyinka ay ka shaqeeyaan ama gobolka Banaadir. galka baaristu waxa uu la xiriiray qaar ka mid ah shirkadaha oo ay ka mid tahay shirkadda Himilo. mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda oo aan la hadlay waxay ii sheegtay in go'aanka ka soo baxay bankiga dhexe uusan wax saameyn ah u keenin. waxay ii sheegtay markii aan ka dalbaday waraysi in mas'uulka shirkaddu uu mashquulsan yahay. waxaan sidoo kale la xiriiray shirkadda Global Market, waxaana mid ka mid ah mas'uuliyiintu uu ii sheegay inuu raadin doono mas'uul shirkadda ah oo aan ka waraysto, taasi oo markii dambe suurtageli weyday. waxaase uu ii sheegay inay iyagu laftoodu la xiriireen dawladda Soomaaliya, ayna u sheegeen inay doonayaan in sharci la siiyo ay ku shaqaystaan. mas-uuliyiinta qaarkoodna ay ugu jawaabeen inaanay xilligan degsanayn shuruucdii maaliyadeed ee ay ku shaqayn lahaayeen. markii shuruucdaas la sameeyana loo yeeri doono, inta ka horeysana ay iska sii shaqaystaan. waa sida uu hadalka u dhigay. waxaa galka baaristu uu sidoo kale la xiriiray qaar ka mid ah dadka macaamiisha ah ee lacagaha ku darsaday shirkadahan. waxaa dadkaasi ka mid ah Cali Cabdullaahi oo maal gashaday 2 shirkadood. aniga markii koowaad suuliyo waxaan ku darsaday 300 oo lacag. dawladda hadalkeeda waad maqashay, waxay tiri shirkadahan akawnnadoodana waa in la xiraa, lacagahoodana waa in maaragtay la joojiyaa. waxayna sheegtay dawladdu shirkadahani inaysan wax sharciya ka haysan dawladda. hadalka dawladdu wax kalsooni darro ama kugu ridaya aad ku qabto shirkadda, mise kalsoonidii aad ku qabtay shirkadda waxba iskama bedelayaan? hadalka dawladda waxaan ka maqlay macnaha waxaan kalsooni darro waxaan maqlay idaacadda wadadan afiyay inay ku qorneyd dad soo cabsay oo mataqaana oo lacagahoodii waayey oo khasaaro ku dhacay. kala aniga 2 shirkadood weliba hubaan 3 mar baan ka qaatay. mar haddii aanay ayaga lacagta loo dhiibtay aanay dadkii dhibaatay, anigu hadda ma arko mid dawladda waxaa wax caqligalay lama aha. saasaan isleeyahay anigu kulli. ma laga yaabaa in lacagahan wareegaya ee adi maanta lagu siinayo ay yihiin lacago laga soo qaaday qof kale oo Soomaaliya? lacagta adi bisha laga qaadana qof kale un baa la siinayaa. marka ma laga yaabaa lacagahan inay iswadi waayaan sababtoo ah faa'iido aad u badan weeyaan oo dad badan oo dhaqaalayahana ay leeyihiin ma sii socon karto? macnaha waxaanay suuragal ku noqonay hadda midba shirkadaha midda ugu horreysay 8 bilood ay hadda shaqaynaysaa. marka 8 bilood waxaanay lacag qaadin 4 bilood oo kamidana lacag baanay qaadin. marka ma suuroobi kartaa adiga ma kula tahay qofkii lacagta macaash la qaadanayay haddana oo sii qaadanay ninkii lacag kale ma qabanayn 8 bilood oo adaan ka tagaalahayn kuga dirsan wax bishii 8aad baa lacag laga qaadanayaa. marka ma suuragal ma tahay qofkii lacagtii inuu siinayo mar walba. waxaan sidoo kale la xiriiray Cabdulqaadir Maxamuud oo ii sheegay in lacagta uu maal gashaday lagula heshiiyay in laga siinayo 20% faa'iido ah. muddo kadibna waxa uu u tagay shirkad kale oo uu maal gashaday, kuwaasi oo u ballan qaaday 50% faa'iido ah. aniga horta kow yar saaxiibkay ayaa yidhi meeshaan faa'iido leedahay lacag ku darso sidaa u galay. ma fahanti
qolada aan ka bilaabana waxaa la yidhaha iyada kaamil. marka imisaad ku darsatay lacaga? miya waxaan ku darsay lacag 10 kun ah. waa gartay. lacagtaasna waxaa la yidhi 20% faa'iido leedahay. waa gartay. bishii 20% markii la dhaho waa 2 kun oo lacag oo faa'iido ah. marka niyow saanka u gal horta barnaamijka maanta kulli waqti aniga waa wareystay waxaan niyow hadii lacagteeda ay qaadato iyaan masuuliye. waa gartay. ani kulli ma baqaan waxa way u cusub yihiin. marka wuxuu yiri yarkaana masuulkaayo oo waxaan aniga ku jira oo waa kaasa wax ladan ku markay ama ku jira lacagteedana waa si qaadanay taas miyaan ay okay adina masuuliye sidii ku gal markaas dawladdu waxay ku doodaysaa warqadeedana waad aragtay waxay ku doodayaan waxay leeyihiin shirkadahani ma haystaan sharci ay ku shaqeeyaan shati ma haystaan liisan ma haystaan haba yaraatee dawladana kama diiwaan gashana taasi miyaysan walaac kugu hayn shati way haystaan shirkad kastaba shatigeeda ku tusaysaa markaan shatiga oo wasaaradda oo ganacsiga su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan qaab aad ku hesho oo sharci ah oo damaanad qaad leh oo lacagtaadii raasamaalka ahayd aad ku hesho ma taqaanaa oo ma lagu siiyey cid meel damaanada lacag meel u taalo hanti meel ay u taalo qaab sharciga ood ku heli karto waxaagii haddii shirkadani ay shaqada joojiso berri ka maalin ma taqaanaa? maya ma aqaan taas lima siin taas meel oo damaanada lima siin. saraakiisha dawladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jiraan dad badan oo lacagahooda la lunsaday balse aan ku baraarugsanayn. qobarada dhinaca suuqyada lacagaha waxay galka baarista u sheegeen in faa'iidada laga heli karo suuqan aysan ka badnayn 4% markii suuqyadani ay ku shaqeeyaan heerarka iyo sharciyada caalamiga ah oo aysan gaari karin 40% ay sheegayaan shirkadahani. dadka lacagaha ku darsaday shirkadahan ayaa gaaraya kumanaan. tusaale ahaan waxaa la aaminsan yahay inay waddanka ka shaqeeyaan ku dhowaad 90 shirkadood oo forex ah badankooduna waxay degan yihiin magaalada Muqdisho balse waxaa ku jira meelo kamid ah gobolada waddanka qaarkood waxaana mid kamid ah shirkadaha ugu yar oo dhawaan shaqada bilowday ay diiwaan gelisay ilaa 120 qof oo macaamiil ah kuwaasi oo maal gashaday. bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu shirkadahan faray inaysan lacagtaasi qabanin kuna shaqaynin maadaama aanay ogolaansho u haysanin inay adeeg maaliyadeed qabtaan. suuqyada maalgashiga iyo kuwa saamiyada ayaana xilligan ka oolin sharci lagu maamulo iyadoo weliba suuqani uu ka mid yahay kuwa ugu casrisan balse halis badan ay ku jirto. gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo galka baaristu arrintan wax ka weydiiyey ayaa yidhi sidan: ma jirto shaqo forex ah oo laga sameeyo 80% adduunka meelna kama jirto. Soomaaliya sida ay uga jirto iyo cidda heshay iyada cadayn doonta. waxa uu intaas ku daray oo uu yiri waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inaanay ku kadsoomin ama lagu khayaamin ganacsigan inay ka fiirsadaan meesha ay galayso hantidooda ay dhididka iyo tacabka badan ku heleen. dadka maalgashaday qaarkood ayaa sheegaya in ganacsigan ay ka faa'iideysteen dhalinyaro badan oo ka tahriibi lahaa waddanka iyo kuwo kale oo aan shaqo haynin. haddaba sidee ayay dawladdu u sharciyeyn kartaa shirkadahan? Sayid Cali Qaasim Maxamed oo ka shaqeeya mid kamid ah shirkadaha forex ayaan hordhigay qodobkan. number 1 case ay soo dhayman dad tiiga ah oo dadkan xoolahooda si fudud ku qaato sumcadana uga ciyaaro si aysan u imaan waa in loo sameeyaa shuruuc kulli dawladda taas looga baahan yahay waa in u sameysaa dawladda shuruuc dadkaas aysan si fudud dadka xoolahooda qaab aysan ula dhuuman ayagana loogu ogolaadaa inay dadkii una faa'iideeyaan kana faa'iideystaan. runtii dhalinyaro badan oo maanta tahriib lahayd dhalinyaro badan oo maanta waxbarasho lahayd haddii ay waxbarasho ka helaan ama ay fursad u heleen inta lacag ku darsadaan inay waxna ku bartaan kana noolaadaan waa arrin wanaagsan. haddii dhalinyaro meel wax ka bilaabaan la ay barnaamijka inta barteen ay ku shaqaystaan waa arrin wanaagsan. weliba waxaa aada u fiicnaan lahayd in la heli karo qaab fudud oo dadkan lacagaha markii ay faa'iidaan ay kusoo wareegsan karaan. sida tusaale kale waddankan Kenya kale barnaamij waxaa jira qofka marka isla markiiba faa'iido oo lacagtiisa kala bixi karo lira M-Pesa laakiin Soomaaliya waxaa laga yaabaa in hadee wadankii maadaama central bank uusan hadda uusan ama central bank uu shaqeynaa laakiin wadanka xayiraada saaran oo waa ognahay maanta lacag hadii soo gelay waa wax kontaroolan marka oo xawilaadihii iyo qalabka dhibay ku qabaan maanta lacag inay magaalada Muqdisho ama Soomaaliya inay soo gaarsiiyaan.
si ay uga jawaabto lacagaha boorsooyinka looga saarayo waddanka ama lagu soo gelinayo dawladda Soomaaliya waxay soo saartay amar ah in qofka wata lacag ka badan $10,000 uu shaaciyo kuna wargeliyo xarunta wargelinta lacagaha ama Financial Reporting Center oo xilligan shaqaysa si ay ogolaansho u qaataan. amarkan ayaa soo baxay bishii hore ee Febraayo waxaana uu toos ula xiriiraa lacagaha ay gudbinayaan shirkadaha Forex waxaana soo dadejiyay lacagaha ay la baxayaan shirkadaha Forex. waxaa sidoo kale uu amarkaasi farayaa in maalin walba lacagaha la bixinayo loo baahan yahay in ogolaansho laga qaato